sanadihii la soo dhaafay waxaa soo batay caruurta Soomaaliyeed ee daraagiska isticmaasha. Waana arrin Soomaalida ku cusub, khaasatan haddii aan ka hadalno Soomaalida ku dhaqan dalkan Australia. Arrimahaas maxaa sababi kara? arrimahaas ciyaalada inay maartay balwadaha bartaan ama sida hadda drugsko kale waxaa keenaya horta age yar bay ku bilaabaan. Laba waxyaabood baa keenaya because cunugaas bilaabayo ciyaalka qaar waxay u galaan fan macnaha waxaa laga yaabaa saaxiibkiis ama madraskiisa inuu wixii ku jiro ilmuhu waa istashkiiliyaan. Wuxuu leeyahay cunuga waxaa laga yaabaa isagoo lacag lahanayso ama family badan ay yihiin cunugii kabaha uu rabo iyo koofiyada qaaliga uu rabo oo de kabii naaki $200 la ragadaa ama suudka uu rabo ama dharka uu rabo fashinka uu raadinayo Aan loo awoodin. inuusan raka u awoodin Sax. maadaama baahidaas ay jirto cunuga waa laga faa'iideysanayaa saaxiibkiis kale oo waxaa isna ku jiro sidaasoo kale mar hore loo geliyey ayuu la sheergareen wuxuu leeyahay maxma haystimiya annaka anaa shaqo ku haya cunugii 10 jir ama 12 jir waa loo geynayaa qolooyinka waxaas hawshaas ku jira loo geynayaa cunugii wax yar baa la siinayaa xiliho waxaa soo bilbila soo gadgadaya wixii waxaa laga yaabaa gurigaas ama waalidkaasi inuusan cunugaas ogeyn meesha uu ku maqan yahay cunugii gurigii kaba iyo koofiyada qaali la soo galay waalidiinta qaar way ku baraarugsan yihiin oo way dareemaan waalidiinta qaarkoodna maba ogaba wuxuu leeyahay saaxiibka ii soo gaday waxaa lagaa rabaa haddaa waalid tahay marka calaamadahaas oo kale aragto inaa cunugaaga daba gashid because haddaadan adiga kabahan qaaliga usoo gadan koofiyadan qaaliga aad usoo gadan intuu ka keenay